بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan wanaagsan idil ahaantiin meel kasta joogtaan. waa Engineer Amir oo idin salaamaya. soo dhawaada. waxaan maranayaa in codkaygu si wanaagsan idiin soo gaadhayo. aad caadi ii maqlaysaan. waxaa caawa la kansalay showgii Maxamed Saciid Bike dalka Nairobi. waxaa la soo qaban qaabiyey niman gaana oo faashasito oo Soomaaliya oo ilaa iyo 60 ah oo Soomaalida koonfur u dhalatay dadkaas oo dhammaantoodba dowladda Soomaaliya lacag ay calaa qof $100,000 siisay. 60 qof qaarkood waxa la siiyay 45,000, qaarkood waxa la siiyay 60,000, iyada oo nin walba loogu talagalay inuu dilo 3 qof 4 qof. kabacdina nimanka haddii wax la qabto sharciga Kenya la mariyo, kabacdi dowladda Soomaaliyana ay dalbato oo ay dowladda Soomaaliya markaa dadka ku bedelato waxyaabo kale. arrinta laamaha ammaanka ee dalka Kenya ogaaday kabacdi waxay la hadleen fanaanka iyo safaaradda Somaliland bay la hadleen. waxaa ninka reer Somaliland showga dhigaya. showga ammaankiisu waa halis badan baa ku gadaaman. dadka reer Somaliland ee meesha joogana niman argagixisa ayaa doonaya inay dhibaato u geystaan. adigu waxa imika la hayaa dhowr iyo 10 ilaa 20 imika la qabqabtay oo dowladda Kenya hayso. waayo dal aan lahayn oo ay marti ku yihiin ayay dooneen inay markaa ay dhibaateeyaan. waxaa markaa arrintan loo sameynaya waxaa jira in yaroo la ilaalin aan hela oo la siiyay lacag 1,700,000. waxa uu dhigayaa tuurar buu Yurub ku wareegayaa iyada oo la leeyahay noocan hela Soomaalinimo dad ku helay, iyadoo xafladaha dadka 3 meeloodow wixii reer waqooyi lacagta laga qaaday wixii reer xamarina xafladaha nimcaan hela ay bilaash ku galayaan. taas oo macnaheedu yahay in niyadda lagaga dhaawaco qurba joogta reer Somaliland. sida runtii waxaanu ka wada warqabnaa Somaliland arrin baa ka jirta. dowladdeennii hore ee dowladdan maanta joogta ka horreysay qurbaha ayay xoog ay u gelisay tacab. waxaa jira fanaaniin reer Somaliland oo ciidda ka badan oo dowladdii hore ee Siilaanyo ay fangareyn jirtay oo duurar dhigi jiray oo wax badan qaban jiray oo qaranka Somaliland markaa aad ayaa sare loogu qaadi jiray. in maanta ay tan inagu dhacdo waxa sabab u ah diaspora dibadda aad baynu ugu xooganahay haddaynu nahay reer Somaliland. ma samayno wax la yiraahdo dhaqaaq. ma samayno fanaaniinteena reer Somaliland maanta jooga Yurub inaynu qof madaxa keeno oo markuu nin madaxiinoo yimaado dabadeetana ummaddu isu timaado. maanta wasiir baa imanaya gurigiisa hoosta ka gelaya cidi ma arkayso. qurba joogti markaa waxaa sabab u ah
furfurkan badan ee inagu dhacay qurbuhu inagaga yimi. qurbuhu wuxuu u baahan yahay awood badan buu u baahan yahay. anuu in badan baan dowladda kala hadlay, waanu awoodnaa barnaamijyo fara badan oo ummadda reer somaliland la isugu soo dhaweynayo in qurbaha laga qabto. waayo ninka maanta halkaas soo fadhiya internetka ku jira, marka caawa faransiiska aan xaflad lagu qabanayo fanaaniin la imanayaan, dowladdina ay dhaqaale gelinaysa, halkana dhaqaale laga helayo, ummaddii reer somalilandna isu imanayso, wax badan baa isbedelaya. wax badan baa isbedelaya. marka madaxweynuhu uu guul gaaro oo kale, qurbaha xafladaha lagu qaban jiray, taageero ahaa, wax kastoo wanaagsan waa la qaban jiray, ma jiraan maanta. ma garanayo markaa anigu waxa ay tahay. sida runtii dowladda soomaaliya aad bay noola dagaalamaysaa, aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad bay noola dagaalamaysaa. dhaqaale marka lagu adeegsanayana ummaddan maanta joogtaa waa maxaan cunaa. ummadda miirle ma joogaan, ummad dadnimo le ma joogaan. ummadda maanta dalka somaliland wada caayaysa waxa weeye kuwa ugu damiirka xuni maanta waa kuwa ninka maxamed saciid bike qabiil ahaan kasoo jeedo. maxamed saciid bike waa nin qaran, laakiin qaarko inta ugu badan ee magaca la wareegta ee la wadaagta ayaa waxay yihiin wada caada qaata meedhan. muxuu dalkiisa u caayaya? wuxuu ka jecelyahay somaliland ma jirto. muxuu u caayaya? calashaan wuxuu u caayayaa $4,000 iyo $5,000 oo la siinayo. waa damiir darooyinka ugu waaweyn ee qarankeena maanta dhallinyaradeena ku dhacay. waa la wada tegayaa, waa la wada tegayaa. nin walba wuu xiiqaya, wuu iska tegi. waayo qofna flentry kuma shaqayn karo 2 sano 3 sano 6 bilood kuma shaqayn karo qofna flentry. qof adag 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 adag. waayo maanta kale waxay joogtaa somaliland, maanta kale waa markii maalintu fulaygu baqi jiray weeye. maanta oo kale nin adag ayaa u dhabar adeega. soomaad garani war waxaan aan la dagaalano, aan joojino. imanka dalmar mid la yidhahdaa jooga, waxa weeye ha laga soo saaro somaliland. ficil baa ficil guda. waxa weeye fanaan kasta oo qadaadweyna oo inoo yimaada hala mamnuuco. midda kale somaliland waxaa loo xiday xidigaha geeska, hala joojiyo arrinta fanka somaliland. xidigaha geeska loo xiday. dowladdu ha u sinaato fanka free ha ka dhigto. fanka somaliland waxaa loo xiday inama yaryaroo la yidhahdo xidigaha geeska. xidigaha geesku waa kuwa somaliland dhulka sii geliyey. waayo maanta wadanigii iyagaa qaada, waxa weye wax walba iyagaa qaada. fanaaniintii berigii hore waxa weeye kooxa way jiri jireen, fanaan waliba fanaanku ka cod macaya socon jiray. laakiin kooxdan la yidhahdo xidigaha geesku dhaawac weyn bay inoo geysteen. dhaawac weyn 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 ayay inoo geysteen. dee waa raggaa dumarkooda heshiisiin kari waayey ayaa ka mid ah. raggaa maanta naagtii wada qabeen heshiisiin kari lahaa baa ka mid ah. ee labadoodii naagood marba midna meel kasoo heshiisa, marna mid kale meel kasoo heshiisa. ya oo dadka noocaasa weeyaan. marka horta xidigaha geeska ha laynaga qabto. oo waxa weeye inankan yare afhayeenka madaxtooyada xidigaha geeska hoos fadhiya 90 kaba war adeer madaxweynaha lagu diray. soomaad garanin caadi baan u hadlayaa, qayliya caadi lay maqlayn. war miyaan caadi lay maqlayn? intaa in ka badan waa habeen weeyaan. soomaad garan kan yare hoos fadhiya xidigaha geeska, haddii ay qof xidigaha geesku ka cabtaanba ciidanka hoosta ka taabanayo ee laleeyahay afhayeenkii madaxtooyada, adeer adna wax ma kuu sheegaa? iskaga hoos kac. xidigahan geeska ku hoos qayeelayso iskaga hoos kac. haddii kale fidyooyadaadaanu soo dhigi. annaga injineer amiir baana la yidhahdaa, waxba nagama qarsoone. iskaga hoos kac xidigaha geeska. oo xidigahan geeska ha laga dhigo muwaadiniin oo dalkii ka xigsan. qofka qurbaha ka imanaya xidigaha geeska waxa weeye la odhanaya way soo dhaweynayaan. ma garanaysa wax kasta xidigaha geeska waa fanaaniin, ma diidanin. waa fanaaniin qaranku leeyahy, ma diidanin. soomaad garanin. laakiin xidigaha geeska maaha inay somaliland u afduubnaato maaha. dowladda somaliland waxaa leeyahay sacuudiga nin walba nin baa dila. nin walba nin baa dila. maanta
laba gool bay qadaadweyntu inaga dhashatay ariga way naga joojiyeen maxamed siciid bikeeyo hanti qaran maanta waa kuwa علشان محمد سعيد بك الله حمانية عنصريات وي يعني هي ريسيستي إياها إنه ريسيستي مني إياها عالم كودا كفانا صومها الصومالي ونمدو ذا كفانا كما عينه من لأن الريسيستي قال الرسول كدغا يفرماتشي خيرات جره من لهانو ما تبقى له إنك نكينا ما يلك أدق ويتبقى نكينا ما يلك أدق way daba galaan sidaasay u caayaan gentleman eega sida maanta u caayayaan markuu garowsaday inuu nin Somaliland diray Soomaad garanay marka waxaan leeyahay anigu ummadda reer Somaliland leeyahay war waxaan iyaga hal daba galo oo iyaga hal isku diro oo dagaalka ila xoojiyo waxaan ana aqaansada la isugu diray ana isku rogaya kuwan magaca ilaahay intii Soomaaliland ku soo jeedaan iyaga la isku jeediye xaafad ba madaxa la isugu galiya qabiil ba afka la isugu galiya wax cadun ba laga sheega oo xaqiiqa ah Soomaad garanay xamar qaraxa lagu badiyo baasha hal la kordhiyo oo Sacuudiga sooynadan Iran haysana Iran saldhig military hala siiyo markaas Sacuudigu xaar ku waalan doonaane oo Ilaahay baan ku dhaartay maca Soomaaliya ay xidhiirka u jarayaan Iran saldhig military hala siiyo ilaa badaynu leenahay dhul baynu leenahay warna horta maxay idin ka xun ina dhaqaajiya bal Iran hadda weeyaan Iran maraakibteedan saliida ee maanta Iran baynu garab istaagayna wanima aan dhaka keeno Iran wata laga baqay in Israa'iil baabisa laga baqay oo ay Mareykanka hooyadii wasto Soomaad garanay war Iran haloo yiraahdo kaale saldhig military baan ku siinanay magaca Ilaahay maca Mareykan maca Ingiriis maca Yurub maca Asia إلها بانكون درت حارب يسكسي دينيان حار إلا أفريقيا حار يسكسي هرت عرب وردن الأرك ماي والعرب وحبين وما صوت مع إمارات كله وح الله لا يوح ينص صوّدان متشوتو سوما دان قراني أنت تسكت إنسان عربان نلاقى حراي مركز وسير كنو حشاقي أريجين إن شبوت اللي قد لوفين دونه وملتحي وسيركيني wuu maldahay wuxuu ariga loo yaacada ka gudba kuma soo noqon karaan Somaliland waxa laga qaadayaa intii dekada lagaga rabay علشان dekada Djibouti baa la tagayay micnaheedu waa taa muusan oranin dalka wax ka bixi kara ma jira dalka wax ka bixi kara totalis xuduud dalku leeyahay wax ka bixi kara ma jiraan ma oran taasa ka qurux badnayd warniyo qofka bini aadanka ay qaraar buu qaataa go'aan jilicsan lama qaato Soomaad garanin go'aanka jilicsan wuxuu burburiyaa qaran buu burburiyaa maanta oo kale inaad ku dhawaaqdid inaan markab ka baxayna lagu soo celin karin Somaliland waayo uu ka baxay hadii lagu soo rogayna xoolaha saaran magtoodii calaa neef $200 in lagaga soo rogo waayo nina kuma dhaco markaa inuu markab iska raro laab la kac inuu qofna wax ku raro lagama yaabo Soomaad garanin go'aanada degdega ah ee aan ka fiirsashada lahayn ee maalayacniga ah ee ummadda iyo dawladda isku hor keenayna war hal la joojiyo Soomaad garanin amar buuxa waa inuu ku bixiyo wasiirku inaan dalka wax ka dhoofi karaa jirin inaan Sacuudiga Somaliland wax ka soo gali karaaba jirin waa awoodaha loo adeegsado cunaqabatay noocan marka lagu saaro inaan diyaarad Sacuudiga ka soo dhoofisa maca muwaadiniinta Somaliland noqoto ka soo dhoofisa inaanay jirin muwaadinkan ku inuu Itoobiya ku qasabtay inuu Itoobiya ka digo haday sidaa noqoto Itoobiya intuu ka digo ku yimaada
soomaad garanin waa inaad ugu baaqdo safaaradda Iran ee Dahran waa inaad markiiba u qortaan email degdeg ila wixii way la socdaan inaad tirahdaan wafti baanu idin soo diraynaa cilaaqaadkeena iyo ma garanaysa maxaa adiga ka galay sunni iyo shiici maxaa ka galay labadoo soo islaam ma madhabuun baa lagu kala duwan yahay imisa madhaba jooga qaar looda caabudo ay markay imanayo madhaba sheegtay qaar yiri gaba neefka qofka muslimka ah biraya xaraan qaar yiri baa maanta jooga qaar yiri gabadha nin kale meheriya waa xaraan baa jooga maxaa idinkeena waalay sacuudi gadar maanta wad arkaysan waxay tagtay dhuusamareeb iyo cabud waaqi bay maanta marayeen gadar war waxan candooyinka waaweyn yaman bay baabiyeen ma adiga naf ku hayaan ya Soomaaliyana Iran ma tagi karto oo Sacuudi iyo Imaaraad bay la xiran tahay war cadawgaaga cadawgiisa la doontaa cadawgaaga cadawgiisa ayaa la doontaa war dhaka keena haddii kale annaga nadira anaa berita safaaradda Faransiiska tagay Dahran ilaahay baygu bal aniga dawladda Soomaaliland ila soo hadalo bal xiriir noo soo xidhay ana intaan safaaradda taga Dahran ka tagay ilaahay baygu oo wufuud Soomaaliland Dahran ku soo dhaweynayay bal annaga wax noo dira wuxuu noo magacaabo digrati madaxweyne wuxuu nagu siiya annaga meel walba galeynay carabtan waxa weeye dhingad baanu la dhacayna shirkad Faransiis ah diideen maanta oo aad DP World baad siisan dabeetana carabtii oo lacag dirteed u siisan maanta diyaarada iyo maraakiib iyo hubbaanu idinka qaadi lahayn Faransiiska 2 milyan oo shirkadood Faransiis ku leeyaan idin soo kaxayn lahayn nimayo danteena ma naqaano carabi xagga inoo wada meel la inoo ma wada carabi degadeena maxay ka qabteen waa kuwaas airportkii ma inoo dhiseen airportkii berbera way isaga xidhay 3 sanadood ma inoo dhiseen maxay naga qaldan war waxba inaga qaldan aynu si saxo imaaraadkan waa tuban wajiile war dantu saaxiib joogta ama leh ee interest bay leedahay interest wax la yiraahdo Soomaad garanin maanta ruushkan inaga doonayo dekada wuxuu inoo soo maray gini concrete inoo soo maray hadda eeg saldhig military buu inaga doonayo gini buu inoo soo maray ginina yaa marka ruushka ginina yaa isu diray imaaraad baa isu diray hay iska meeyna tagin gini dan ay leedahay baynu u fulinaynaa inagu dan aan leenahay fushan mayno ninka saldhig military inaga rabo inuu toos inagu Moscow uga digna ma aynan been isugu maaweelino gini concrete maxaanu ku tagnay gini concrete gini Conakry ama Conakry maxaanu ku tagnay saldhigana seelac baynu ku tagnay inoo dhaxeeyaan inaga iyo ruushka waa qalad Dahran baa inooga dhow Dahran baa ruushka iyo inagana wada hadal siinaysa sumadan fahmin wanimo hada billahi alaykum midna madaxweyne ayadayada eegana shaqadayada ficilka ayaga ka badane iyo cadaawadan qadaadweynta u qabnee bal annaga wax noo magacow wasiirka nuclearka noo magacow ee aan jirinba annaga nuclear sameeynayna wasiirka nuclearka noo magacow ya Soomaad garan madaxweyne cadow baynu leenahay dagaal xun ugu wada aniga imanka waxaan awoodaa maanta de madaxweyne dhaqaale ma hayatee itiraafku iskama imanayo madaxweyne itiraafku dhaqaalu doonaya waxana qofna iskama dhaqaaqo ma dhaqaaqi karayno madaxweyne ma dhaqaaqi karayno haddaanan dhaqaale haynin dhaqaaqi karayno albaab walba annaga garaaci lahayn Yurub baa la yiraahdaa meeshan Afrika oo kale ma safarad walba waa la iska galaa dalaq ballan baa laga sameystaa ambassadorkan doonaya ballan baad ka sameeysan bilaa hadal halkaas aad kula soo sheekaysanaysaa dantaad leedahay hadduu ku qanaco dantaada hadduu ku qanaco wuu gudbin ka bacdi dawladda dad interest bay leedahay war qofkan muxuu ka socdaa dawladda
haye ma la xidhiidhi karaa dowladda ayuu kala xidhiidhi karaa madaxweynaha buu ku xidhan yahay toosana lagu soo xiro haye emailka madaxweynaha iyo dowladda hana la siiyo waa kan toos warqadda ha loogu diro dowladdu ha ka jawaabto isku xidhka noocaasa dunida ka socda soomaad garanay marka waxa weeye meeshan gubanaysa baddeeni baa la qaatay kamaynan waxaan leeyahay hawadii soomaaliya la qaatay maynan dacweynin waynu iska aamusannahay shib baynu nahay macnaheedu waxaa ka hadlaysaa aynan waxba ahayn maaha inaynu lidka diyaaradaha dhignay ahayd inaynu mamnuucnay ahayd diyaaradaha waxa weye adduunkani baqdin kuma noola baqdin baynu ku noolla xaggaa laynooga hanjabaa meeshii laynooga hanjabaynu ka baqnaa waa xaggee meel baa laynooga hanjabaa baase waa xalkee meesha laynooga hanjabaa madaxdeennu meel bay ka wada baqaysaaye meeshan seefta laynaga tusay waa halkee seef baa ayna dul saarane aynu seeftan fashiline shacabka maad seeftan u sheegtaan idin dul saaran meesha ka timi waarab gebigeedaba ha la yidhahdo qof soomaaliya ka iman karaa ma jirto diyaarad dul mari kartaa ma jirto hawadayada ilaa iyo miyiga meel hawada somaliland ciddii martay idinkaa laydin yidhahda war yaman oo burbursan baan la mari karin hawadeeda oo gantaallo midhasaa ula dhacaysa oo balastika ah inagu gebigeedaba waxaynu la dhacaynaa ma gantaallada aynu haynaynu la dhacaynaa aynu soo iibsanay aynu haysano maxaa inaga xun wallaahi bilaahi tallaahi haddaynu maanta ku dhawaaqno waxaa la odhanaya yaan meesha la gelin haddaynan xitaa gantaalba haynin yaan la gelin baa wallahi la odhanaya mamnuuc waayo waa dal quwaddeenna la eegaya hubkeenna la eegaya wallahi yaan la gelin baa la odhanaya shirkad kastoo diyaarad kicisa xolanaysa kuma jirno qaramada midoobay wuxuu odhanaya aniga way heshiiska waa laga baxay dee qaramada midoobay adduunkuba wuu isu imanaya war hana la kala gaadho dabeetana qaramada midoobay dadka meesha ku dhintana qaramada midoobay waa inuu wasiirka warfaafintu markiiba go-aankaa qaataabe diyaaradaha gadar waanu soo ridaynaa kuwa turkiga waa soo ridaynaa dowlad aanu diyaaradeeda cafinaynaaba ma jirto haddayna duqeeyaan maxay naga helayaan xuluufaa baynu helaynaa haddii dal ka mid ina duqeeyo ila weligan baa layna duqeyn jiray soo kole baa iska dhalan mayno adduunkaynu xuluufaysi ka helayna oo dalkaasaa burburaya nimanyo aynu dhaqaajino aynu dhaqaajino nimankan aan la dagaalano nimankan maanta xoolaheenni waad aragtaan deked bay taagan yihiin ilaa imanka waa laysku haystaa fanaankeenni waad aragnaa soo maydaan garanin maxaa inoo hadhay dee hawadeenni waa la qaato waa aragnaa ee kaawad godob cad bay gashay nimankan aan ka badino badda kenya aan saxeexno kiis dhan oo badda kenya cadowgaaga cadowba wax aakhira loo diraa kenya waa in loo yeedho waa in la yidhaha ictiraafka somaliland saxeex annagu soo somaliland lama nihin ha annaga soo ogos la tegi maayo ha annagaabala waa dowladda kenya iskale ilaa madaxweyne siilaanyo prime ministerkii hore cumar carte qaalib maxay ku wana yihiin dadkii wax ogaa maanta inagunbay dadkeenni baa noole maxaa idinka qaldan ra-iisul wasaarihii hore cumar carte qaalib baaba ogaaba oo saxeexan jaanis baad haysataan madaxweyne siilaanyaaba ogaa saxeexan baasha ha la hoos dhigo maxaa idinka qaldan nimankan inta arigaaga iyo ku wareegaalsanayaan dalkooda dhan goog aakhira u dir iyaga iyo hooyadoodba shidaalkan iyo nimcadan ay doonayaan soo kolleba hadday helaan adiga kugu layn maayaan oo hub iyo nuclear kugu iibsan maayaan dee kenyaankaasi qani ha ku noqdaan ya kenyaankaasi qani ha noqdaan kenyaankana ku dhawaaqdhe somaliland dabadeetana isagoo ictiraafkii aad haysatid ood gacanta ku haysid badda aakhira ugu dir aakhira badda ma u dirta sidaa markuu kenya usoo noqotay maxkamaddana kan soomaaligaana looyarka kenya looyarada kenya ha yidhahdaan ninkana laga bedelo ninkan soomaaliga ee qadaadweyntae maxkamadda heeg joogane ha laga takhalluso dim ha la yidhaha ninkaasi waa xagjir weeye dacwad ha lagu furo dacwadda soomaaliyu dhan buu ka yahay dhan buu ka raran yaha la yidhahdo aakhiraha loo diro dem soomaad fahmin dacwadda kiiska marka la imaado
dowladda Kenya lagu soo diro 20 qof oo reer Soomaaliland oo markhaatiya inay Kenya leedahay dacwadda Kenya ha la soo dhiso adeer ha la soo dhiso Soomaali fahmin dambaasha dam wallahi billahi wa ta'ala iyaga mid aan ka soo waqsanin baan ku dhufanayna marka weligeena cadaawada inoo ahaato inaguna aynu sida labada Kuuriya aynu noqonayna oo xaqiiqa ah been idin ma sheegayo wallahi labada Kuuriya aynu noqonayna labada Kuuriya ayaynu ku dambaynayna idigu meel dhowaad ka hadlaysaan labada Kuuriya aynu ku dambaynayna Soomaalida garan baasha hal ballaariyo baasha hal ballaariyo Soomaaliya waa iib oo hal iibiyo kowde badda Soomaaliya chance baynu haysanaa chance weyn baynu haysanaa Soomaad garan badda Kenya maanta aanu kaga arsana nimanka qaniya ka goysay aynu badda Kenya isku hayaan Kenya badda leh badda Kenya leedahay ku haystaan aynu kaga arsano maanta nimanka aan kaga arsano badda Kenya ee Kenya leedahay ay Kenya ku haystaan aan kaga arsano mar haddii hawada yiraahdeen oo ay hawada qaateen oo waxa weey caalamku inaga hiiliyay oo qaramadii midoobay inaga hiiliyeen ilaa markii hore adduunkaaba Yurub baa isugu kan yeeli jirtay maanta Yurubna soo gaari kari weyne Soomaad garanin marka waxaan idin leeyahay nimanka maanta lagaga aarsadataa nimanka ku yiri ha noolaani ee maanta aruurta yar miiga joogay neefka ariga inta raaciyay neefka ariga loo iibiyay labada shuga biriiska basada loo siiyay maanta halka istaajiyay war nimanka maanta aan ka arsano Soomaad garanin oo nimankan dalka aan ka saarno oo nimankan xuduudda aan sirb biro ku xidhno oo nimankan yaan waxba inooga soo gelin hawadan yaan wax inooga soo gelin dhulkan yaan wax inooga soo gelin Soomaadan garanin war nimayo aan fadhiga ka kacno war yaareen war aan fadhiga ka kacno war cadow baynu leenahay cadowgan aanu jeesan war 28 sano cadaawadii 60kii laynagu qaaday baa inagu soo noqotay war aan jeesan oo cadaawadu jeesan war hadda cadaawadu waxay ku kordhisay mooy waxba ka ridimayso wallahi billahi waxay inoo kordhisay mooy waxba inaga ridimayso wax ay inoo kordhisay mooyaane wax inaga baabinaysa inay jir oo nimankan carabta ana Iran u doonano Iran aan doonano maanta Yamanba Iran ba maanta waxa weey halka keentay war aan Iran doonano oo maraakiibtan ka gudbaysa badeena ee cil lacagteeda qaadataba aan la garanaynin aynu maraakiibta Iran dhigano nidhaano marka marayaaba ma jiro mid Asia ku socdaan maraynin mid Yurub ku socdaan maraynin mid America ku socdaan maraynin mid waxa weeye meel adduunka gacanka inaga fadhina inaga leh badda dunida waxay ka goosheen inaga leh baabul manda baa lagu oranay baabul manda madakada kaga yimaata soo ma gudbeen xaarteeda ka qabtan war Iran meeshan lagu haysto meesha labaadna inaga leh Iran tan difaacato tan ha xirato wallahi adduunko dhan baa ina hoos yaacaya adduunko dhan Iran naga daaya ilaahay ka baqa maraakiibtina Iran saldhigiyay doonaysa meeshan ay ka hesho oo military hadda Iran ku timaado Ruushkina uu ku yimi Iran ku Ruushku iyo Iran waa iswataan haddaad Iran hesho Ruushna heshay
haddaad carab heshana maraykan inaad hesho weeye. carab weynu weyne maraykanina waa weyne dee markaa ruushia eeraan aan doonano kim hon jungna aan doonano ee maraykan baa lagu dilaa isagane kim hon jung aan doonano ma fahanteen oo kim hon jung aynu waxa weeye nilano bal noo kaalayo bal beeraheenan adigu iyo hubna nasii halkana kaale wax ku beero oo halkan maalin walba 100,000 trilyan oo qabandiye kala dhoof iyo arabkhiya galle iyo haruub billankii ilaahay wallahi 180 hektar baynu siin lahayno ama beerta ceergaaba ingiriisku lahaa baynu siin lahayn gabigiisaba ee webigu maro ee ingiriisku qaniga ka noqday beerta ku taala damala xarageeraalka ka xigta ayaynu siinayna gabigiisaba webigana marka sanadana 3 cisho adiga ku socdo 3 cishana dadka leh oo beeraha kala waraabinaya durdurkaas iyagaaba ballaadhinayo biyahan iska qulqulaya meesha ka imanaya balaaye sida ugu dhufanayaano dunidaba barwaaqi ka dhigaya Soomaaliland garanin maraykanna inaan ka yara gantaalka baynu u doonaynaa warniyo mandaqadan aynu ifino mandaqad inta afrikaanka xunaa qurinka ku wareegaysanaya carabtan xunaa khamiisyada waaweyn oo yaman halala hadlo xoutiyiinta yaman halala hadlo wallahi billahi kim jong un Soomaaliland uu ka soo degaya wallahi billahi tan caadi markaas inuu sidiisa adduunka farsamo loo baahan yahay gabigeenu inagoo sida u rabaasayna leena arki lahaa sanad gudihi ma garateen markaan ma waan salaamaya aqal waayda shaqeeyo Soomaaliland hawarto cadawgeedna ha jabo reer Soomaaliland baaq waxaan uga dhigayaa Maxamed Saciid bi kamaalintu imanayo ee Hargeysa imanayo waa in ciid u dhaqaaqda waa inaynu tusno Maxamed Saciid bi ka inuu yahay hanti qaran oo aan qadaad weyn ahayn waa inaynu tusno reer Hargeysa waxaan ugu baaqayaa sidaad Muuse u soo dhaweyseen si lamida inaad Maxamed Saciid bi ka u soo dhaweysaan inaad isbarbar taagtaan waa qarankiina lagu soo duulay Maxamed Saciid bi ka marka lagu soo duulay Maxamed Saciid bi ka lagu ma soo duulin ee qarankeena Soomaaliland nacayb loo qaba lagu soo duulay ma garateen Soomaaliland garanin ee dadka arrinta ka dambeeyay ee ka shaqeeyay RTN TV ga la yiraahdo kamid aha RTN TV ga la yiraahdo ayaa kamid aha ila kamid aha England show ba kamid ahayd dadka arrinta ka soo shaqeeyay England saalax gabadha la yiraahdo oo daahir cali soo adeegsaday ila yara kamid aha dadka dhalinyarada ururinayay ee dawladda Soomaaliya in lacagta soo siinisay Soomaaliland garanin dadkaas kamid aha England show waa gabadha awood ugu badneed gelisay labada show ee Maxamed Saciid bi ka taa ogaada iyo ila yara yaani idin ka bixin ma garatay waxa ka qayb qaadatay gabadha yar la yiraahdo Riyaan gabadha la yiraahdo qaaliladan gabadha badida dheer la misigta biq kasi samxa la fanaanada yadana tayadii nadiir neerusha badida sida ay tan badida dheer baraq badida ka siinaysi igu qaba oo jirtay maxay ahayd warni meesha waa la isugu tagay Soomaaliland garanin marka waxaan idin leeyahay Maxamed Saciid bi ka cid kasta waa la xisaabtami doonaa Soomaaliland waa lama huraan laakiin qadaad weyn oo ku riyota Soomaaliland laakiin wallahi billahi talay Soomaaliland oo Mareykan ay inay soo galeen Mareykan baan ka dhiganaa ayaan mamnuuc ninka qadaad weyn intii Soomaaliland imanaya waa in
inuu 100 milyan oo dollar waa kun Somaliland ku soo shubo idinka helay ayeedeed baan iman karin xitaa Somaliland shaadiya sakiin sharaf ma lahe shaadiya shuko la yiraahdaa shaadiya sharaf lama yahay shaadiya shuko la yiraahdaa shaadiya shuko la yiraahdaa oo shuko wey shaadiya shuko Somaliland garan anyway aad iyo aad baan idin salaamay meel kasta joogtaan noolaada dadkayga reer Somaliland farxad iyo barwaaqo idin rajeynaya meel kasta joogtaan iyo guli iyo gobonimo habeenku idin wanaagsanaado maxamed saciid cabdi bike nolow hanti qaran ilaahayna noo ka daayo unimay reer Somaliland waxaan kala idinku baaqaya qoladiina wax xiri jirtay unimayo page-ka engineer Amir la yiraahdo anigu report gareeyo ku wareeray warniyo page-ka xira page-kaasi karaamadaydu buu dhulka la dhacaya page-ka iga xira page-ka nin ilka casal la yiraahdo ku qoran waa daarood nimanka qora sawirkayga saaran warnimayo page-ka hala xiro reer Somaliland page-ka ku yaaca waa inaan sidaan idin difaaciyo idinna aad u difaacdaan sharaftayda magaca engineer Amir Maxamed aniga leh engineer Amir wax allaaliyo waxaad page aragtaan iga xira page ma leeyahay anigu iyo Amir Karbash nuclear magacaan aniga leh iyo kanaan idkala hadlayo Somaliland garanin nimayo page-ka ku yaaca madaxdeena lagu caaya waxba lagu soo qoraa nimayo page-ka xidheel maadeeraya page-ka xidha waa 30 qof oo report gareeyo page-kaas ku filan 30 qof 1 milyan baad iigu jirtaan waliba page-ka engineer Amir Muuse ay boole iyo waxa lagu soo qorayo midkalna waa idin sheegaya YouTube badanna waan xidhaya imaka oo ka soo daray YouTube cusub oo aan caaw daawanayo warka YouTube iyo something wax la yiraahdo YouTube kan waan xidhaya YouTube badanna waan wada xidhaya oo magacyadeeda adeegsada oo fiidiyodeeda adeegsada dhamaantood hawadan ka wada saaraya Somaliland garanin page-ka xidha page-ka hala xidho reer Somaliland page-ka hala xidho dadka fiidiyodeeda qaata ee jarjara YouTube-da gashada iyagana dhamaantood YouTube-da waa ka wada xidhi doona marka hore waxaan islahaa irsaaqada iska ciisheen laakiin irsaaqooda wasayaal bay noqdeen marka dhamaantiin waxaan idin leeyahay reer Somaliland noolaada meel kasta joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh